tahay 4 bishii 12 2016 waxaan halkan uga hambalyeeynaa waan uga mahad celinayaa mahadaad u balaadhin aan uga jeedinayaa madaxweynaha qaranka mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ii gartay inaan noqdo wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland anigoo horena madaxweynuhu iigu gartay 4 bishii afraad ee 2016 inaan noqdo wasiir ku-xigeenkii wasaaradda gaashaandhigga iyo difaaca qaranka madaxweynaha oo labadan xil mid walba isagu ii gartay aad iyo aad baan uga mahad celinayaa aniguna diyaar baan inaan qarankayga u shaqeeyo waxaan ballan qaadayaa in sida waajibaadka dastuuriga ay qaranku ifarayo inaan u gudan doono xilka aad baa mahadsantii warkiisu noo yiri ilaa habeen hore aadna aan ugu raaxaysanay kalsoonina ku qaadnay haddii aanu nahay reer Darweyne farxadana aanu kaga joogi weynay kuna dhaqaaqayno 20 rabti oo aanu isi saaray oo aanu alla bari ka dhigayno raatinkana kaasoo aad nooga dhigto codsi wasiir buura aad nooga dhigto annana aanu alla bariga ilaa boqol ka gaarsiino haddaanu nahay reer Darweyne yaabo wadada halbowlaha isku xidha gobolada Togdheer iyo Sanaag dhismayaasha wasaaradaha qaranka oo badidooda ay dhismeen waxqabad aad iyo aad u badan aad noo qiimo badan runtii haddii xukuumaddu dalka ay xukuumad kale bedeshana lagu majiiran doono ay xukuumaddan oo dhaxal ay dalka uga tagaysaa waxyaabahaasina waxyaabo ku suntan guud ahaan dadweynaha reer Soomaaliland haddaan soo noqdo degmada Ceeri Gaabo waxaan aad iyo aad gaar ku lahay Soomaaliland inta kale oo dhan shilinka Soomaaliland baa laga isticmaali jiray maanta shilinka Soomaaliland oo dhammaantood oo wada laan ayaa dalka oo dhan laga wada isticmaalaa waana tan lacagta waxa bedelay xukuumaddu madaxweynuhu hogaamiyo oo waxqabadka muuqda ee dalkan loogu hiiliyay degmadan inay ka mid tahay dalka Kenya ciidamada maanta sumad bay leeyihiin dablaha iyo kabtan subax aad iyo aad baan kuugu hambalyeeynaa aad iyo aadna waa kuugu bogaadinaynaa waxaanu mudane wasiir aanu dhisanay intii hadda aan joogay xafiiska taliyaha qaybta saddexaad isagoo uu naga caawiyay taliyaha ciidanka qaranka Ismaaciil Shaqale waxaan aad iyo aad kuugu soo dhaweynayaa in xariga nooga jirtana aan ka codsanaya xafiiska iyaga cusub iyo guryaha kale hoolka shirka oo aan hore ugu kordhinay iyo guriga askarta seexato aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane wasiir وأمضانك أمارا تحريري